وسلم marka hore waa salaamaya saxaafadda runtii saacadaha badan soo jeeday halkan ugu sugaysay marka labaad waxaan umada reer Soomaaliland dibadii gudaba meel ay joogan ugu bishaareynaa in khilaaf waa wax mar walba iska dhaca laakiin sidii leenagu yaqaanay reer Soomaaliland hay in khilaafkii dhamaysanay in isku afgaranay saddexdii isku afkarteen saddexdii xisbi ee hawsh maartay stakeholders ka inay sidaa saddex gudoomiye ku hadleen oo shir gudoomiye ma ka ahaa oo shirku man gudoominay ay ku heshiiyeen in ay qabsoonto doorashooyinkii 2016 bishii December bartankeeda waxaan arkaa caawa guul taariikhi ah inoo soo hoytay waxaan leenahay umada reer Soomaaliland gacmaha isku qabsadaan sida hawsha wada shaqayn lahayn golayaasha qaranka ee qusayso iyo ma shacbiga inaan hawsha dhanagooda jeesano wixii khilaafaad iyo muran awal dhexdeena yaalina aynu dhaafno beesha caalamkana anagu ma hadnaqayna muddo dheer inaga soo shaqaynaysay doorashooyinka iyo waxyaabo kale humanitarian kaaba in iyaguna hawsha ka nagala sii wadaan oo ay maartay nagu qabtaan nagu taageeraan go'aanka aanu wada qaadanay iyadoo aan jeclaysanay in mar walba aanu dhexdeena wax dhamaysano sidaa darteed aad iyo aad baan u hambalyeeyaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland saddex gudoomiye iyo rag galbeed waxa la socday aad iyo aad baan u hambalyeeyaa runtii dood aad u qurux badan iyo si wadaniyeed ku jirta loo maartay soo hawsha loo faguray aakhirkiina waa tacaawa saacadani halka lagu soo gabagabeeyay guul baynu joognaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.